Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, maanta waxaan idin wadnaa magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu noolaan karo dalka Turkiga. Qaar ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee Turkiga lagu noolaan karo waxaa ka mid ah magaalada Istanbul oo ah caasimadda Turkiga, magaalada Antalya, Barsha iyo weliba magaalooyin kale oo warbixintan aan kugula wadaagi doono. Turkiga waa lambarka koobaad ee bulshooyinkiisa, dhaqan furfuran iyo weliba martiqaadka ku wanaagsan. Magaalooyinka Turkiga way fududahay in la dejiyo qaybta nolosha. Waxay leeyihiin cir qurux badan iyo weliba qiimo nololeed oo jaban. Dadka Turkiga iyo weliba shisheeyahana ay u aqoonsan yihiin wadankaasi inuu yahay dal nabdoon. Turkiga ayaa ajaanibta ka codsada sababo la xiriira qiimaha maciishada oo aan qaali ahayn iyo weliba dhaqamo kala duwan. Magaalooyinka ugu fiican ee Turkiga lagu noolaado. Halkan waxaa ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee Turkiga. Haddii aad tahay qof qani ah iyo weliba qof faqiir ahna aad ku noolaan karto weliba nolosha dalkaasi ay ku soo jiidanayso. Haddii aynu ku hormarno caasimadda dalkaasi Istanbul, doorashada magaaladan Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ay ku nool yihiin dadka shaqadoonka ah ee Turkida ah iyo kuwa ajaanibta. Waa magaalada ugu wanaagsan Turkiga gaar ahaan dhanka ganacsiga. Waxay ka dhigan tahay dalka qaybihiisa taariikhiga ah, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Tani waa sababta ay ugu fiican tahay ganacsiga. Magaaladan waa Istanbul. Waxay bixisaa wax kasta oo magaalo baaxadeeda ay tahay inay lahaato. Nolol caways ah oo mashquul ah, dukaamaysi badan, iskuulo gudaha iyo weliba dibadda oo heer sare ah ayay leedahay Istanbul. Iyo dabcan soo jiidasho sida Hagia Sophia, masjidka buluugga ah iyo kuwo kale oo badan. Istanbul waxay leedahay cimilo wanaagsan oo aan kululeyn xilliga xagaaga ah, badanaa waxay kor u dhaaftaa digrigeeda 24 senti. Laakiin xilliga jiilaalku qabowgu wuxuu noqdaa mid daran, barafkuna maahan mid aan caadi ahayn oo dadka ay xamili karaan. Antalya, dalxiiska ganacsiga ee nolosha xeebtan. Antalya waa goob dalxiis oo caan ah. Waxay u fiicnaan lahayd qof kasta oo daneynaya inuu furo maqaayad ama hodheel. Dabcan tani waxay la macno tahay in ganacsigu uu noqon doono xilliyadeed, laakiin weli waxay ku siin doontaa riyooyin cajiib ah. Ajaanib badan ayaa u haajira Antalya iyo weliba magaalooyin kale ee xeebta gobolka markii ay la kulmeen dhammaan waxyaabaha raaxada ah ee ay ku nool yihiin dalkaasi. Dadka ku dhaqan ee xeebtaasi ay qayb ka tahay. Magaaladu laftigeedu waa nadiif oo ammaan ah. Waxay leedahay suuqyo cunto toddobaadle ah kuwaas oo caan ka ah, waxayna gacan ka geystaan hoos u dhigista qiimaha nolosha. Haddii aad rabto inaad shaqayso, magaaladu waxay door ay ka qaadan kartaa inaad heshid internet degdeg ah oo weliba shaqooyinkaaga aad ku qabsato. Nidaamka gaadiidka iyo dadweynahana waa u jaangoysan tahay magaaladu. Barsha, sababtoo ah dhinaca galbeed ee dalka Turkiga waxaa caan ka ah in qaar badan oo Yurubiyaana ay doorbidayaan. Laakiin haddii aad rabto dareenka dhabta ah ee Turkiga, Barsha waa meesha aad tagi karto ee naftaada qancin karto. Hase yeeshee waa magaalo madaxeed. Waxaa jira meelo badan oo cagaaran, sababtuna waxay tahay waxay leedahay meelo dabiici ah oo ay ku jiraan jardiinooyin, alwaaxyo, waxaana yaalo waxa loo yaqaano Green Barsha. Gobolka Izmir oo ku habboon howlgabnimada. Haddii aad u guurayso dalka Turkiga, howlgab ma heli doontid meel kaga fiican in lagu noolaado. Waa Izmir waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Turkiga oo leh dhammaan tashiilaadka nolosha uu qofka doonayo. Waxa kale ay leedahay isku xir gaadiid heer qaran iyo heer caalami ah, maadaama ay tahay deked weyn oo badmareen ah. Haddii aadan jeclayn isticmaalka baska, magaaladu laftigeedu waxay leedahay wadooyin badan oo qofka u sahlaya inuu ku lugeeyo. Gobolkani weyn ee Izmir waxa uu ku yaalaa magaalada agteeda. Waxaa jira bulshooyin kale oo yaryar oo laga yaabaa inay aad ugu habboon yihiin qaab nololeedka howlgabka ah. Nasiib wanaag, weli si fiican ayay ugu xiran yihiin magaalada inteeda kale. Ankara oo ah xarunta ganacsiga iyo warshadaha dalkaasi. Magaalada Ankara waa magaalada labaad ee ugu weyn, waxayna ku taallaa bartamaha dalka Turkiga. Ankara waa xarun weyn oo shirkadeed iyo weliba xarun warshadeed, laakiin waxaa jira laba sababood oo adag in lagu daro safarkaaga Turkiga. Ankara waa magaalada ugu wanaagsan ee lagu noolaado.
waxay ku leedahay xidido qoto dheer taariikhda Turkiga iyo waliba sidoo kale warshado si fiican kuu siinaya. Waa maxay meesha ugu nabdoon ee lagu noolaado dalka Turkiga? Ajaanibta Turkiga ku nool ayaa ku nool meelo kala duwan, inta badanna waxay ku wareegsan yihiin xeebaha dalkaasi, sababtoo ah way ka muxaafad badan tahay qaybta galbeed ee dalka. Dad yar ayaana degan bariga. Shaqaaleysiinta hore waxay door bidaan inay ku noolaadaan magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo magaalada Ankara. Warbixintii aan idinkula wadaagaynay magaalooyinka ugu wanaagsan dalka Turkiga ee lagu noolaado waa inaga intaa daawadayaal. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, la wadaag saaxiibadaada oo sheer gareey. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Intaynu ku kulmi doono muuqaalkan lamida waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.